waxaa maanta magaalada Burco lagu caleema saaray Chief Caaqilka guud ee beelaha dega gobolada Togdheer, Saraar iyo Buuhoodle ee beelaha Solomadow. Chief Caaqil Faarax, Chief Caaqil Jaamac, Chief Caaqil Maxamuud Afkuwaranle. Munaasabaddan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxay ka qabsoontay hoteelka Isha Burco ee magaalada Burco, waxaana ka soo qayb galay salaadiin, cuqaal, garaado, waxgarad, siyaasiyiin, haween iyo marti sharaf kale. waxaana halkaasi lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo agabka hidaha iyo dhaqanka. ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay cuqaasha waxgaradka beesha caleema saaraysay Chief Caaqilkani, iyo sidoo kale waxaayana hadalka isu daba maray salaadiin, cuqaal, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb gashay munaasabadaasi. waxayna alla u weydiiyeen in uu xilkaasi ku asturo isla markaana uu cadaalad ugu adeego beesha u garatay mas'uuliyadaasi, kuwaasi oo dhammaantoodba ka marakacay inuu yahay Chief Caaqil soo jireen ah. waxaana ka mid ah hadalladoodii: waxaa madasha tan lagu caleema saarayaa Chief Caaqil Faarax, Chief Caaqil Jaamac, Chief Caaqil Maxamuud Afkuwaranle. Chief Caaqilka kan xilkan dhaqanka ee Chief Caaqilkan loo soo caleema saaray maanta oo ay soo caleema saartay beesha Solomadow waa ninkii lixaad ee xilka kan ay beeshu u dhiibato weeye. Faarax waa nin intellectual ah oo mutacallima oo aan maanta ku faraxsanahay inuu ka qayb galo madaxda dhaqanka. wuxuu ku soo kordhin doonaa oo wax ka bedeli doonaa saan rajaynayo anoo ku waqaana maskax wanaagsan, akhlaaq wanaagsan, dad wadid wanaagsan. mudanayaal iyo marwooyin, waxaanu soo gudbinaynaa Chief Caaqilka guud ee beelaha Solomadow ku hubaysan ama xambaarsan mid diiniya iyo mid maadiba. naga gudoomaanu nileenahay xilka ballaaran Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jalla wa ala ku asturo. waxaad naga gudoontaan Chief Caaqil Faarax, Jaamac, Maxamuud qoladayada keentay madasha ee Solomadow ama reer baran. waxaan leeyahay agahayaynaan iskaga marin aan la shaqayno. waxaanu wadnaa saaka haddaan nahay beesha Solomadow Chief Caaqil Faarax, Chief Caaqil Jaamac, Chief Caaqil Maxamuud Afkuwaranle ayaanu saaka ayaa naga gudoomaysaa ayaanu galbinaynaa wadnaa lix caaqil oo shan caaqil oo ka horeeyay kii lixaad isagu maanta yahay. Chief Caaqil Faarax, Chief Caaqil Jaamac, Chief Caaqil Maxamuud Afkuwaranle oo beeshu soo xushay waa naga gudoomaysaan. waxaynu haynaa dhaqan doorasho. Faarax, Jaamac, Maxamuud Afkuwaranle soo dhaweynaya marka hore waanu idinka gudoomanay, aad iyo aad baanu u gudoomanay. uqaasha hadiyo goraal qaarna waa la soo xulaa, qaarna way dhaxlaan. marka labadiiba wuu wataa xulkii iyo dhaxaltooyadiiba. waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka ha ku asturo. waxaan kula talinayaa uqaasha Solomadow Chief Caaqilka maanta ay caleema saareen inuu noqdo marsici reerka ee dib loogu noqonayay ee talada iyo tusmadaba laga qaadanayay insha Allah ta'ala. marjaabku waran leeyahay arrintu waa dhanta waanu taageersanahay, gacantii gacmihiisa midig iyo garbihiisaanu nahay. aad iyo aad baanu Chief Caaqil ku soo dhaweynaynaa. Chief Caaqil la garanayo oo la hidda raacay baa tahay. aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa. abti waxaanu ku leenahay Ilaahay ha kugu asturo xilka lagu dhiibay. annaguna sidaa la sheegay ee raggii hore sheegay waa kugu garab garaynaa. haddaan nahay baha ugaas oo jilib walba leh. waxaanu leenahay horta Chief Caaqilka la doortay, waxaanu leenahay horta ku soo dhawow madasha dhaqanka. halkan kolle hawl badanna waa iska taallaa, waanu kugu soo dhaweynaynaa. Chief Caaqilkana soo xusheen xilkiisa aad u garateen inuu buuxin doono halkii cuqaashii hore ee ilaa lixda ee la tirinayay. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. maanta waxaa kuu timi oo ku caleema saaraysa bulshada mudankeedii. reerkiinna waxaa kaala socotay intii mudnayd, laakiinse berrito bulshada aad caaqilka u noqotay ee Solomadow labay noqonaysaa, mid dantiisa ka adag iyo mid aantiisa ka adkayn. beesha Solomadow keentay waa taageero, waa isgarab taag, waa gacansiin. taariikhda laga sheekeeyayna wuu leeyahay, waayo waxaan garanayaa ilaa Jaamac Afkuwaranle la garanayaa oo aan dee garaad iyo ciidan lahaa. uma baahna abtirsiyo iyo wax ma garanaysaa ee la sheegay waa nin godkiisii helay. Chief Caaqilka beesha Solomadow waa lagu soo dhaweeyay,
annana waa ku soo dhowaynaynaa haddii alla ka dhigo waxaan kugula dardaarmayaa hag reerka isukeen reerka uruuri reerka ninku mar haddii uu ku dhasho bahasha wuxuuba soo ahaayeen dee wuu ku dhashay markaa ilaahay subxaana wa tacaala waa kula shaqaynaynaa garbahaanu taagannahay waxaan kaloo kugula dardaarmayaa ha alaaqaysi tegin alaaqaykaga iska ilaali inaad meelaha u dusto oo ma garanaysaa siyaasiyiinta iyo ma heshiinayaa dhaqanka iyo siyaasaddu waa col jiif caaqil faarax waa u hambalyaynaynaa beeshii keentayna aad iyo aad ugu adkaynaynaa inay u dhaganuglaadaan oo ay la shaqeeyaan oo ay duruufihiisa iyo xaalkiisana dee ay ka warhayaan ilaahay waxaynu uga baryaynaa jiif caaqilka cusub ee maanta halkan lagu caleema saaray in ilaahay xilkaa loo igmaday beeshiisu u soo garatay inuu maanta ku metelo in ilaahay u fududeeyo waxa weeyaan cuqaasha maanta dalka u rajistar garaysan 1800 baa dawladda lacag ka qaata horta kursigaad ku fadhiisanaysaa 10 nin ee la tilmaamo ee ay dawladdu weliba aad uga baqan jirtay orodaya caalamiyi joogaabay oo jiray wasiir kastoo magaalada soo gala jiif caaqilka guud ee Solomadow ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilka kugu asturo marka aniga iyo Maxamuud waxaanu ka midnahay ragga doonaya gobolka sidii ay ugu soo xiri lahaayeen dalka intiisa kale gabagabadina jiif caaqil faarax jiif caaqil jaamac jiif caaqil Maxamuud Afkuwaranle ayaa u mahad celiyay beeshii u soo xushay sandaladani iyo sidoo kale marti sharafti kala soo qayb gashay munaasabadaasi waxaana ka mid ah hadaladiisii cuqaasha maanta waxa laga rabaa inay ka hadlaan wax kasta oo baylaha ama dayaca oo bulshada dhexdeeda ka jira inaanay ku milmin siyaasiyiinta marjac baa dalka u noqonaysaan waxaan idinka codsanayaa inay iigu ducaysaan mansabka kan ama dhaqankan laygu maamuusay ayaan rabaa inay iigu ducaysaan salaadiin iyo cuqaal iyo dee ducadiinni waan qaatay inay ii laba jibaartaan oo aad siiba suldaanka guud oo halka jooga ayaa la ciga ducaale Bukhari wararka telefishinka sahan burco